caadayso yicibka. Yicibku wuxuu qani ku yahay borotiin heer sare ah, vitamin E, magnesium, fiber, noocyo kale oo amino acidyo ah iyo maadooyin kale badan kuwaas oo jirku faa'iidooyin badan ka helayo. Kuwan waa faa'iidooyinka aad ka helaysid yicibka haddaad maalin kasta aad isticmaasho. xoojinta awoodda maskaxda. Yicibka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cuntooyinka u fiican maskaxda. Waxaa yicibka laga helaa labada maado oo nafaqo iyo muhiim weyn u leh maskaxda, waana riboflavin iyo L-carnitine, ayagoo sidoo kale dardar geliya habka shaqaynta maskaxda. hoos u dhigga istaagga wadnaha. waxaa jira nafaqooyin badan oo laga helo yicibka kuwaas oo sifeeya tuleelada halbowlayaasha ku shuba kana qaada dhiigga wadnaha, kuwaas oo hadday xayr isku xandaafto aad khatar ugu jirtid wadna istaag. haddaad isticmaashid yicibka 4 xabo maalintii, waxaad 50% hoos u dhigtay khatarta istaagga wadnaha. adayga lafaha. yicibku wuxuu qani ku yahay maadooyinka phosphorus, manganese, magnesium, potassium iyo calcium oo nafaqo lagama maarmaan u ah dayactirka, adayga, nafaqada iyo caafimaadka lafaha. ka hortagga cilladaha lagu dhasho. haddaad tahay hooyo xaamilo ah, waa inaadan ilaawin in qowtul-yoomkaaga uusan ka maqnaan yicibka. wuxuu u fiican yahay dhallaanka ku jira uurka iyo adigaba. kolestaroolka. yicibku wuxuu hoos u dhigaa heerka kolestaroolka. cunista badan ee yicibkuna wuxuu maareeyaa hoos u dhigga kolestaroolka.